kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada janaalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbano wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo nidaamka dhacay ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu dalbanayo soo celinta askarta ku maqan dalka Eritrea maanta Muqdisho hooyooyin Soomaaliyeed oo baroor iyo oohin la dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayagoona xiray wadooyin waaweyn oo markaasi muhiim u ah socodka madaxtooyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waan soo gudbin doonaa dowladda federaalka war la yaab leh ayaa ka soo saartay dibadbaxyada iyo ciidamada loo qaaday dalka Eritrea haddaba wasiir Dube oo ah wasiirka idman ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa jawaabo adag ka bixiyay hadalkii dhawaan ka soo baxay qaramada midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaalameen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya falcelinta ka dhalata ayaan soo gudbin doonaa Kenya waxa ay markaan dib u fasaxday diyaaradihii tagi jiray iyo kuwa ka imaan jiray gudaha Soomaaliya kadib cadaadis xooggan oo dowladda federaalka ay saartay wararka kale ee gobolkana waxaa ugu waaweyn arrimaha diblomaasiyadda imaaraadka carabta iyo dowladda Sacuudiga oo si lama filaan ah u wada hadlaya haddaba yaa garwadeenka ah qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale nagu soo kordha daawadayaal haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saar gambalkana furo oo share gareeya saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo markaas kumantiga laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin ka qayb qaata dib u dhiska dalka aan ku sameynayno aan ku bilowno waxaa magaalada Muqdisho maanta ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo in dib loogu soo celiyo askarta ku maqan dalka Eritrea banaanbaxa oo ay dhigayeen waalidiin ay wiilashooda ka maqan yihiin iyo dadweyne kale ayaa ka bilowday isgoyska kilomitir 4 dadka ayaa waxa ay isteen boorar lagu cambaareynayo nidaamka waqtigiisu dhamaaday hogaamiye madaxweyne Farmaajo waxa ay dalbanayaan inay xog dhameystiran ay ka helaan wiilasha ka maqan muddo 2 sano ah dibna loogu soo celiyo dalka iyagoona ku dhawaaqay ereyo karan ah maamulka Farmaajo arrintan ayaa ka dambeysay markii ay soo baxday warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha dalka Eritrea oo lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo tababarka u jooga dalka Eritrea loo qaaday gobolka Tigray ee dalka Itoobiya siyaasiyiin badan ayaana ka dalbaday madaxda dowladda federaalka in arrintan ay ka hadlaan oo xaqiiqda ay ka sheegaan ayadoo markaas weli aan wax war ah ka soo bixin hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo arrintan ay dusha oo markaas ay u baarayaan xaaladda jirta hooyooyinka oo markaas maanta dibadbaxoodu aad u xoogana isla markaana indhahoodu ay ka muuqatay ilin iyo markaas baroor weyn ayaa waxa ay inkaar iyo soo kaleente habaar culus ay la duldhacayeen taliyaha hay'addan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Abu Camaara ah waxaana soo kale ay ereyo karan ah Farmaajo ay dhahayeen in markaas wiilashooda ay dib ugu soo celiyaan haddii ay arrintaas ay dhacweysana ay markaas sheegeen in markaa ay inkaartii ugu xumeed ay ku rideen ayadoo intaas maanta ay jirtay isla markaana hadalhaynta ugu badan ay ahayd hooyooyinkaas ayaa mar qura laga warhelay shir jaraa'id oo degdeg ah kaas oo warbaahinta u akhriyay wasiirka idman ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kana shidaal qaata madaxtooyada federaalka Soomaaliya waa Abuukar Cusmaan Dube wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Dube oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho isagoo ka hadlaya arrinta duqeynta Kenya iyo ciidamada ku maqan dalka Eritrea wuxuu sheegay in ciidamada dowladda uu noqdo qof qaangaar ah ee aanu jirin qof lagu qasbo inuu ciidan noqdo isagoo u doorto in dalkiisa difaaco wuxuuna ku dooday in arrintan tababarka ciidamada ay tahay sir qaran warbixintii qaramada midoobay ee ku saabsan in ciidamada Soomaaliya la geeyay gobolka Tigray ayuu sheegay inay tahay wax ma kama jiraan ayna ka qaateen wararka ay Facebook ay ku qoreen siyaasiyiinta mucaaradka ah taasoo ka dhigan in marka la Dube uu warar afka ku qaaday mucaaradka dowladda ka soo horjeeda wuxuu wasiirku ku dooday in Itoobiya aysan u baahnayn ciidamo Soomaaliyeed oo ciidamo badan ay haysato isla markaana aysan jirin wax ciidan ah oo la geeyay Tigrayga waqooyiga dalka Itoobiya isla markaana ay dagaal culus ay kula galeen jabhadii TPLF oo ciidamada federaalka Itoobiya halkaas ay ku xasuuqeen isla markaana muddo ka badan bil ay la dagaalamayeen meel jaan iyo cirib dhigana la waayay isla markaana hogaamiyahoodii Debretsion Gabriel Mikail la doondoonayo isla markaana ay Itoobiya sheegtay in markaas Masar Debretsion lacag madax furasho ah la duldhigay cidii soo sheegtayna meesha uu joogana awaal mar lacageed oo malaayiin dollar ah la siin doono qaybihii dhexe ee janaalkeena ka wararka ayaa daawanaysaan saaxiibayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambalkana furo
shargaraya saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumantiga laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin ka qayb qaata booliiska dalka aanu ku samaynayno idinkoo markaasi mahadsan. markaana Kenya dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay dib u fasaxday duulimaadada Soomaaliya kadib xayiraad ay muddo saartay taas oo ugu sii dartay xiriirka xumaada ee u dhexeeya wadamada deriska ee Soomaaliya iyo Kenya. saxaafadeed rasmi oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in maanta wixii ka dambeeya dib loo fasaxay duulimaadadii ka imaan jiray Soomaaliya kuwa ka imaanayay dhinaca dalka Kenya gaar ahaan Nairobi. sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay tallaabadan ay horseedayso in dib loo soo celiyo xiriirka labada dal oo leh iskaashi ganacsi iyo mid deris wadaag ah. warqadda ayaa waxaa lagu sheegay in kaliya dadka safraya laga doonayo inay wataan shahaadada caddeynaysa inaysan qabin cudurka safmareenka ee COVID-19. xayiraadda ay Kenya hore ugu soo rogtay oo loo sababayay khilaafka labada dal ayaa saameyn ku yeeshay duulimaadada labada dhinac ee Muqdisho iyo Nairobi. ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka oo ku aadan go'aanka ay Kenya dib ugu fasaxday duulimaadada Soomaaliya. si kastaba labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii dambe xiriirkoodu aad u hooseeyay iyagoo markaas oo kala arartay safaaradaha waxaana arrintu ay ka sii dartay markii uu soo shacbaxay kiiska badda ee haatan horyaala maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo dowladda Kenya iskaga hartay gebi ahaanba markii ay weysay dalabyadii caalamiga ah ee u deereysay qaranada caalamiga ee maxkamadda taas oo ay ku dalbatay in dib loo dhigo markii afraad. hase yeeshee dowladda federaalka go'aankaas ay ku adkaystay isla markaana in maxkamadda ay go'aankeeda ku qanacsan tahay waxaana guul weyn ay ka soo yeesay arrinta kiiska badda Soomaaliya oo dowladda federaalka ay ka guuleystay cadawga Kenyaanka ah ee doonaya in badda shacabka Soomaaliyeed ay boob ay ku sameeyaan khiyaano iyo dabarjebin taasoo hal meel loogu soo wada jeestay. ودهنا داودال وناقنتا ورركي ووانا يا سوماليا عالم كاد كلا سوتين دلكا نكاها ورركا وحبين نمو جمعة اي سوق الاسو تاريخ دونا اي تهي توكا بش جون لما كن كو اي لباتن كقيب قاتل دي بوليس كدلكا انقصو مينينو اد بادو ما سنتين